munaasabad weyn oo lagu xusayay maalinta xorriyadda Soomaaliya oo ku beegan 1 Luulyo ayaa lagu qabtay xaafadda Islii magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne fara badan oo qaarkood ku labisnaa calanka buluugga ee Soomaaliya iyadoo munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen kooxda dhalinyarada fanaaniinta waayaha cusub. waxaa dabaaldega munaasabadan si gaar ah uga dhex muuqday fanaanka weyn ee kooxda Qeyladhaan Jogle Shire Jamac iyo fanaaniinta kooxda waayaha cusub kuwaas oo goobta ka qaadaya heeso u badan wadani. رئيس وزراء Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadweynaha reer Islii kala qayb qaatay dabaaldega munaasabadan ayaa waxa uu khudbad dheer ka jeediyay uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay munaasabadan. guuradii kofay labaad ee ka soo wareegtay maalintii xorriyadda aan qaadanay 1960 waxaan ognahay maalintaas inay tahay maalintii Soomaali midaysay oo aan qaadanay xorriyadda aan dirsanayno oo aan manaafacsanayn muddo 30 sano ah laakiin kadib ay ku dhacday. sidoo kale waxaa khudbad qiiro leh ka soo jeediyay xafladan abwaanka kabiirka kooxda Qeyladhaan Cabdi Shire Jamac isagoo dardaaran iyo baraarujinba u jeediyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed. sidaad la socotaan caawa aniga waxay ila mid tahay habeenkii ugu horreeyey ee calan Soomaaliyeed la saaro waxay ahayd 12 Oktoobar 1954 maalin Talaada ayay ahayd. macnaha waa markii daaqiliyadda oo macnaha talyaanigu lagu simaayey waxaan maqlay nin odaya oo xilligaa noolaa wuxuu noo sheegay maalinta ayada calanka la saarayay inaysan caadi ahayn. waxaa la sheegay in nimankii talyaaniga dalka xukumayay ee dalka haystay calanka Soomaaliga meesha la saari lahaa subaxii guudkii loogu talagalay geedkii inuu soo fuula galayrkana waxaa la yidhaha nasiib badan waad ka waraysaa. 2 saaca subaxnimo ayuu soo fuulay galayrkii saacadii markuu saaraa wuu tegey haddana wuu soo laabtay. adigu waxay noqotay calan Soomaaliyeed markii uu horreeyay maalintaasay ahayd. waxaa hadallo kooban ka soo jeediyay munaasabadan dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaalada ATM iyo qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed iyagoo dhammaantood si isku mid ah u tilmaamay muhiimadda ay leedahay xilligan in la xuso maalinta xornimada Soomaaliya. qabyaalada Soomaaliya xagga weerayna Muqdisho Kismaayo Boosaaso Garowe dhammaanteen waa noqonaynaa Hargeysa waddankeennii baynu noqonaynaa haddii aan bayno qabyaalada qarannimo. It's really beautiful, unbelievable. Mashallah. I haven't seen like this in my life. Last 20 years. It's beautiful. Waan ku faraxsanahay sida isugu duwantiin kulligiina dhalinyaro mashallah. aad iyo aad 100% proud of you guys. It's really beautiful. Kanoo kale weligay maaran. dabaaldega munaasabadan 52 guuradii ka soo wareegtay markii xorriyadda qaateen gobolada koonfureed ee Soomaaliya iyo Israaci gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya ayaa si weyn looga dareemay xalay magaalada Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaali fara badan. waxayna munaasabadan ku soo beegmaysaa maalmo kadib markii wada hadallo u bilowdeen dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland iyadoo la rajaynayo inay dib u soo laabato midnimo iyo dawladnimo buuxda oo lagu waaro. Ibrahim Gedo Awale, S24 TV, Nairobi.